ilana soo eegaysa aniga in baabuurka la saarayo noocuu yahay iyo sida la kaxayn doono runtii waan naxay marna waan farxay mar waan naxayo waxaan ka naxay in iyadoo halka joogta aanan awoodi karin in la istaago maadaama waqtigaas ay adkeyd in maalin ama tuulo lagu arko wiil yar iyo gabar yar oo meel wada taagan iyaduna ahayd gabadh deegaanka iyadii family-geedaba laga garanayo aniguna aan ahaa qof family-giisa iyo deegaankaba laga garanayo intaa wixii ka dambeysay waxa la diyaariyay inaan shaambooga raaco waxaana gaariga shaambooga ahaa ee miigay soo qaadiyay soo maray markay saacadu ahayd 3 galabnimo ayuu soo maray kadibna waxa la igu fuul waan fuulay rakada sarana boodo anigana bacdiyaan siteena waa la iga soo daba tooray aabahay waxaan igu sheegay inuu soo duceeyay insha Allah noqon doonana mid anfacay insha Allah isaga future-ka ilaa waqtigaas laakiin tuulaha subaxii 10 subaxnimo ahayd ilaa ay 4 galabnimo markuu gaarigu ila soo dhaqaaqay gabadhii Sucaad ahayd waxay taagnay tuulaha dhinaceeda iyadoo soo daawanaysa oo eegaysa bal gaariga la saaraa iyo saan u tagayo iyo waxaan sheegayaa toona inuu dhabdhab yahay sidii baan ku soo baxay waxaana aragtideedii igu dambeysay markii gaarigii anigu aan fushanaa xawaare aad iyo aad u badan ku socday kadibna aniga iyadana uu kala qariyay boorkii gaarigu uu seeday inta wixii ka dambeysay waxa yimid magaalada Hargeysa magaalada dadka ku dhalateen ay yimid oo igu cusub magaalo aan arag magaalo wada leeraysa ayaa la soo galiyay kadibna mid ila socday oo markaa anigu baabuurka xaqiisa saraan wada fushanay ayaan weydiiyay waxaan ku meeshan waa maxay uma jannadii baa markaas igu meey waa magaaladii Hargeysa ayaa la yiraahdaa igu aniguna waxa baqdiniga aan ka hayay waxaan maqla jiray markaan yaraa jannaduna way iftiin badantay cadaabtuna way madow badan tahay oo dab bay ka baxaysaa marka waxaan is iriun markii magaalada Hargeysa halka la iga soo galiyay walaa jannadii baa halkan aan soo gashay halku ka taagnaa maaragtay fikirkaan oo magaalada ka haysto waxa la keenay guriga abtigay leeyahay waxa la baray dadkii family-ga ahay waxa la raacin jiray guriga abtigay kuwa ugu yar yar si ay magaalada ay soo kala tusaan iyo istikada waan xasuustay maalintii ugu horeysay wixii aan ku bartay magaalada meeshii ugu horeysay laga baxay ma la maro waxa in ku yar abtigay dhalaan eriyaday kadibna uu sakad iga soo wareegay markuu sakad iga soo wareegay intaan isaga eriyanay kama fikireen inaan isaga qabto laakiin inta dhexda socdo waxaas lahaa ambad ugu dambeeyna waxaan ku soo noqday gurigii waxaan kala bartay magaaladii waxaana la igu daray markaa iskuulkaas anigu markii aan waan yaraa aan ahaa qof quraanka bartay waxaana la iga bilaabay grade 4 ayaa la iga bilaabay sidii baanan maaragtay aan waxbarashadii aan ku waday iskuulka anigoo maalmaha ka mid ah waxbarashadeedii ku jira oo maaragtay qof u dadaalaya wixii miiga loo keenay inuu ka mid dhaliyo oo ahayd inaan magaalada wax ku barto dadkayga iyo mataqaana walaalaha iyo cid kasta oo ila degneed miigaasna inaan anfaco ahayd ayaa maalmaha ka mid ah anigoo iskuulka form 1 markaa iskuulka ka soo rawaxay waxa ugu weyn aan ka fikiraa inuu yahay maaragtay nus saacahayga iyo maaragtay insan waxaan magaalada ku joogjoogayo ayaa waxaan si keliisa ula kulanay gabadh aad iyo aad u qurux badan oo markaas iskuulka waqtigaan dhiganay form 1 baheedo 5-6 sano kadib gabadh aad iyo aad u qurux badan maaragtay laakiin aan wajigeedii iyo aragtideedu aniga aan xusuusteeda ka bixin isla gabadhaasina gabadh kale ma ahayn waxa ahayd gabadhii waqtigaas anigu aan jeclayn ee Sucaad la oran jiray kullu runtii waxa igu noqon weeday oo qaadan waa ay marigu noqon weeday waxaan isku aragnay xaafada dhexdeeda iyadii khudaar sidata oo khudaar sidata ahaan maaragtay weynaatay oo maaragtay kullu qof magaalada muddo joogtay noqotay laakiin sidii ay u qurux badnayd iyo si ka sii qurux badanba u qurux badatay baan ayaan kulanay markaan wada hadlaynayna hadalkayga mid kasta waxa ka muuqanaysa naxdin iyo maaragtay qasho aad u fara badan anagoo maaragtay isweydiinayna maaragtay kulba su'aalo mar miigis isla soo hadal qaadana mar aan weydiinayo magaalada goor ay timid bidkaaye midka kale kulba su'aal aan maskaxdiisa ku jirin intuu israado u sheeg ba aan ka soo baxayninba inta kadib waxa noqotay inaan iyadii su'aal weydiiyo su'aalahaas oo aan doonayay mid kasta saan aan rabo inay iga jawaabto su'aalahaasna waxa kamid ahaa inaan ku raahdo guriga abtiga baad joogtaa ma gurigii idada baad joogtaa oo iyada joogtaa oo iskuul miyaana dhiganay anigoo markaa doonayay ama waxa ugu weynaan doonayayna ay ahayd inay hal mar igu tiraahdo guriyahaasi sidaas
laakiin waxay sheegtay wax maaragtay anigu aan u qaadan waayey oo maaragtay iga dhaadhici waayey mar mataqaanaa aan naxay aan halkii aan taagnaa ku qoobay oo ahayd in magaaladan iyadoo ay timid ay joogto lagu soo guursaday marwana ay tahay khudraddan iyo mataqaanaa waxaan ay sidaano ay yihiin adeegii gurigeeda iyadana markaa nin weyn aabaheed siiyey kadibna ay sidii iyadu maaragtay magaalada ku soo degtay markaas waqtigaa wixii ka dambeeyey labada iyadoo midka kale maaragtay waxaan kala dhaqaqanay iyadoo ilin indhaha ay kusoo taagan tahay maaragtay midka kale aan waxba ka bedeli karin aniguna markaas wixii familigayga magaaladii keenayba aan dhexda kaga jiro iyadoo meel ay ka soo noqon karto iyo meel wax kastoo naga dhexeeyey maaragtay ay u soo baajin kartaaba aanaysan jirin laakiin waxa ugu weyn ee labadayadaba aan midka kale indhihiisa ku dareemay waxa ahayd inaan ahayn dad muddo 9 sano ku dhadhow isjeclaa yaraantooda isla soo koray waqtiyo badan isla soo qaatay wax badan riyadooda ahayd waxyaabihii igu la yaabka badnaa ee maanta u sheegay waxa ahayd inaan u sheegay iyadoo aan ku yiri waxa ugu weyn in magaaladan uu joogay ama aan wax baranayo waxa ahayd marka waxbarashada dhameystay miyiga ku soo laabto in maaragtay aniga mutacallim oo nin reer magaala ah inaan ku guursado laakiin taas nasiib xumo may dhicin hay sakari marka caawa horta sheeko aad iyo aad u dheer baan maaragtay idinka sheekeeyey waxaan idinka mashquuliyey ayaan filayaa telefoonadiinii ay isticmaali jirteen marka bal farqiga aniga iyo adiga inoo dhexeeyey adiga 8 bilood ana 9 sano oo ka war wallahi waa farq weyn baa inoo dhexeeyey waana sheeko aad iyo aad u xamaasad badan bay ahayd way nagu socotaaba sheekadii aad noo sii wad hay waayahay kadib horta markii maalintaas aniga isu kay dambeysay waxaan noqday qof wixii magaalada ugu yimid sii watay oo aan martaqaan waxbarashadii si joojin ilaa waxbarashadeedan ka dhameeyay oo maaragtay aan noqday qof maaragtay jaamacad ka gaadha magaalada ka shaqeysta maaragtay familigoodii iyo reerkoodina ka warhaya inaan noqday adigu muddo kadib waxa la sheegay gabadhii mataqaana ninkii soo guursaday inuu furay aan dib ugu noqotay iyadana baadiyihii iyo miyigii inta kadib anigoo waxbarashada adigu markaa jaamacaddii waxay iga harsan tahay ayaa waxaan isbardhigay ka hooyadii kadibna maaragtay anigoo haynteeda dhaqaale in yaro magaalo jooga reerkoodii iyo familigoodii joogaan ahaa aan mataqaanaa de maskaxdiisa aanay wax badan ku jirin aan ahayn wax magaalo lagu keenay maaragtay samee isagoo yar oo yar mataqaanaa de jacaylka caadiga dhabdhabtay la sheegaa oo ku soo dhacay ayaan hooyadiin isku ranay oo fikirka aniga ugu weynay anigu markaan xambaarsan ahaa inaan maaragtay waxbarashada dhameysto waan isbaranay waan wada sheekaysanay muddo badan baan mataqaanaa waqti badan baan qaadanay iyadoo markaa iyadu de family reer magaala ka soo jeedo oo maaragtay wax kastaba u baxsan yihiin oo business iyo waxyaabahaas adigu walow maaragtay de dhaqankeena Soomaalida markuu ninku guursanayo maaragtay de familiga gabadhu eegaan haddana carqalado badan oo maaragtay inaan isku guursanay iyadana daftarkeeda way jireen kadibna maaragtay waan isku guursanay oo maaragtay idinkoo saas u qurux badan maaragtay weedinka laakiin caawa sheekadan oo idinka sheekeynay waa sheeko sakrada waxa ugu weyn oo ugu talagalnay waxa weeyaan maaragtay in mataqaana wiilkayga si kaliya aan ku dhiirigeliyo maaragtay farqiga u dhaxeeya 8 bilood sida feeling isku yahay 3 cisho ugu dambeeyay maaragtay wajigiisa ka dareemayay ahayd inuu ka jiro farqi ka weyn oo 20 sano ka hor sida marxaladda maanta aad ku jirtay inaan ku jirayo maaragtay sababna u noqotay inaan weydiiyo marka Samira bal ka waran caawa sheekadan sida kadiska aad la kulantay kugu yeernaado in kastoo sheekada la kulmay caawa oo dana kala lahaa laakiin dantii anigu aan socdan oo sii socdan u baxayba sheekadan baa ka wanaagsan ma aad mar hore nooga shaqeysay Soma imaka waxaan ku raada bal caawa wali ma dhacday inaan mar hore kugu yiraahdo wax kale booyaane marka dhalinyarada leeyahay waxa ugu weyn laga sheekaysta waxa weeyaan jacaylka iyo maaragtay sheekooyinka ugu xamaasadaha badan ee laga sheekaysto haddana caawa ku raada hal su'aal weydii oo jacayl ku saabsan oo jeclaan lahayd weydiismo maxay noqon lahayd horta su'aashaasi aad weydiisay waa su'aal weyn dadka waaweynada si kale iyagu wax u arkaan anaguna si kale wax u aragnaa jiilkayga dambe marka anigu haddaan salaado su'aal weydii oo dad badan ay ku taagantan aan arkay imika qofku mataqaanaa uu jecel yahay oo la sheekaystaa
waxa markasta ku taagan warwar iyo cabsi صح yacni qofkii ficil ma rabo inuu sheekadu bedelo sheekadu uu wada warwarkiina uu dhex socda ama isweydaan ama maalinba qofkii waxba ku soo kacaya ama la awaaladiisa waxyaalahaas oo dhan marka dadkii hore noloshu easy way u ahayd way iskaga dhaqaaqi jireen qofka qof guursaday gaaf baa dhacay wixii oo dhanba sanimka aan ka dhaxarkay sheekada degdeg bay ahayd marka dadkan dambe maxaa ka qaaday bas la taro ku dhacay inay wixii ku dhacaan ficil bedela horta war fiican ah bas aad iyo aad fiican bad weydiisay adduunka marka la joogo waxaa jirta mahmaha caan oo la yiraahdo old school yani wax kasta oo hore wax cusub oo aan la mehelaanaba sida imika maartay inaga waxyaabaha dhaqankeennii hore ahaa ee aan lahayn haddii alaab noqoto waxyaabihii la samayn jiray oo dhan haddii noqoto in mar walba uu fiicnaa wixii inaga hore ee maartay samaynayay marka su'aashaad weydiisay ah maartay in dhalinyarada dambe aanay lahayn ku dhaca waxa weyn horta waxa jirta wax iyaga belief oo maskaxdooda ku jirto oo aanay aaminsanayn oo ah maartay in waxaan dhab yahay waqtigaa marka la joogay imika dhalinyarada qof kasta ma walba haysta internet buu haysta application loo isticmaala waxa laga yaabaa wiilka inuu intaas oo gabdhooda kala duwan message u diro oo la sheekaysto mid cod duubo in hal minute in gabadhu ka daalik intaas oo wiil mid walba la hadlayo marka anigu waxa ugu weyn aan soo kariyo waxa weeyaan waa caqabada ugu weyn haysto waxa weeyaan waa internetka oo tusaale ahaan waxaan jirin kalsoonidii 100% ka hay ee labadaas ku qabay imika tusaale ahaan waqtigaas aan ka sheekeyn 20 sano ka hor gabadhaas anagu aan xiriirka naga dhaxeeyay waxyaabaha aan maskaxdayda marku soo dhicin waxa weeyaan inaan shaqada gabadha nin kale ka guursan doono ama qof kale la sheekaysata waayo aragtidayada ayaa wiiga ahayd inaan is aragno oo aan wax isweydiinaa wiiga ahayd inta kale maxaan ku kala maqnay anagoo laba qof oo isjecel ah waxaan ku kala maqnay intii kalsooni aan labadeed iska haysanay inaan is jecelnahay maalintaan soo nimaadno ee anigu aan wada joogno waxaan isu sheegi jirnay waxaan bil isu sheegi lahayn hadday tala noqoto hadday tusaale noqoto hadday noqoto waxaan isweydiinayno waxaas oo dhan ayaan markaas kala qaadan jiray marka Soomaalidu waxay ku maamaahi jirtay hebelo kumaan ballamin oo yaani marka dee wax rabaan qofkaas inuu si soo baxo dee waxaan ma baahnaba in qofka maartay lagu ballamiyo lagu raahdo waxaas isaa u samee marka qaab noocaas aan hayn marka waxa ugu weyn ku soo noqdo Samiro su'aasheedii waxa weeyaan caqabada ugu weyn waa internetka oo tusaale ahaan imika maartay dee qof waliba ma aha qof mataqaana flexible ku ah talada ugu weyn maartay anigu maartay dee wiilkayga maartay kaliya iyo Samiro aan idinka idin lahaan waxa weeyaan dadkeena Soomaaliyeed waalidiintoodu kala duwan yihiin waalidiintu way isbedelaan marka imika waxa jira waalidiin iyagoo aan miyiga nolosha caadi inaga nolosha miyiga ka soo bilaabanta laakiin waxa jira dad miyiga noloshooda ka soo bilaabantay dad dhalay dadkaas magaaladii maadina carruur si dhaleen kuwaasi waxa hadana si dhaleen iyaguna generation kale oo ah iyagoo wax bartay wax si dhaleen fahankooda dadkeena ma taqaana imika yaani jiilalkiina nimka dambe waxa laga yaabaa in waalidkii fahmi karayo maaragtay hadday internet noqoto hadday wax kasta noqoto yaani say wada sheekaysan karayaan marka ina maaragtay aydan wax ka isku koobin maanta waxa laga yaabaa anigu wax kasto maaragtay dad si kaliya maaragtay talo ah anigoon kugu cadaadinayn kugu mushkilaynin wax khaldan aan ku sheegaynin inaan talo ku siin karayo wax kasta adiga maaragtay aan ku faahfaahin karayo sidoo kale dalik maaragtay Samira waayo waxaan maanta anigoo aabihiina aan kaliya sheega wax qof bilaadan oo kale idin sheegay uu ka diiwaanaya uu ka qurux badnaanaya wax maskaxdiina ku jiraya ayuu noqonaya marka caawa sheekadaas maaragtay ma noqonayso mid inta ku soo gabagabeeyo laakiin waxaan noqonaysaa sida waxbarashadiina iyo marka wax dhiganayseen baan aan wax idin ka sheegi jiray ama baan wax idin tusi jiray inuu ma taqaana jacayl kuro noqdo wax kale oo maaragtay wax iga weydiisaan marka mid kasto labadiina mid kasto maaragtay wax ka khaldamaan ama wax galaan caawa kadib hayga qarana soo falan maaha